galmudug higsi ayaan ka lahaa boqorad ayaan ka ahaa maanta waxaan sugaayay 2 sano socota inaan isu sharaxo xilmaanka galmudug laakiin inta farmaajo ku soo noqonayo ama ra'iisul meesha joogto uma baahni aniga saacadaana gudoomiyaha gobolka galgudug ra'iisul qofka bismillaah magacaygu waa hodan aaran cigaal aana gudoomiyaha dhalinyarada gobolka galgudug waxaan ku suganahay maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saakay waxaan aadnay u dareernay kursigii aan lahayn oo xaq aan lahayn waxaa jirtay inay soo sharaxeen toddoba gabdhood oo kaas reerka farmaajo aan ka dhalanay gabdhahaas markii maxamed Cabdullaahi farmaajo la joogeen xamar u tageen mid walba wuxuu yiri hore u soo kursigu ku furan yahay caasimadda markay yimaadeen waa la soo dhaweeyay hami iyo higsi bay lahaayeen kursigu waa la hakiyay shalay galab ayaan waxaan ka war helnay Facebook kursiga yaala oo lii waa tartan oo la soo furay anigu waxaan kamid ahaa ergooyinka qaarkood waxaan ahaa kaambeender waxaan ahaa hani walaashay garabkeeda waxaan sugaynay xataa in 5 qof 6 qof ay codayso xalay waxa la sameeyay in la bedelo ergadi la geeyay 4 warqadood oo kala nooc ah haba la geeyay xataa warqad ku karsanaan waay waxa dhacday saakay markaan hool ka tagnay in la diido dadkii xataa la diido soconaya inay galaan waxaan galnay gudaha waxa la diiday xataa in codkii qofka uu hadlaayay in loo siiyo xor waxa soo galay hani waxa soo galay fahma waxa soo galay dadka labada kale ee u watay farmaajo labada farmaajo wato waa walaalihiis dal ma alla magan ma waa Cabdille waxa ayaan darra aniga dadka saamaanta la dilaa gabadha markay hadashay oo booday ee codkayga waan leeyahay si liigu gudbi karaa waa sax waa musharax xildhibaan maxaa laga rabaa marka askartii dadku ku iri ayaa la jujuumay ayaa la garaacay ayaa laga saaray hoolka laga soo bixiyay miyaan aniga dimuqraadi ahay miyaan hadli karin miyaan aan dhigi karin waa sax qofkan wuxuu leeyahay kursigu xaq u leeyahay ha ka hadlo marmalas caburinaya warso in kursiga iyo kuraasta حتى قفك يعني لسين عد بينا هلا سيو هلا قد ما يصير لكن روحوا إنه هالدي كرو ساكا واحد جري كرسي مع عبد الرحمن عبد الشكور كاميروين يا موبايل دوك فري بياي واحد قال لنا كلنا نشوف أنا جري موبايل ما دوبنين مركز كرسي على قلت محل ودي بكاميروين موبايل محل ودي موبايل كي يحكوا دبي ولا يجي جبي وكاس مركز اللي جراعي على الجبي أنا قال يتماي أود اللي شكته مرقها ترك اللي شكته نينك أنا والله أنا oo qaas ah la kala saari waay oo dhii waayay inta la soo hadal gabar walba kursigan qof faan siistay heblaan siistay iiga tanaasula wixii inaga baxay waa siiniya ama caafis waa wax la yaqaan gal hoolka waa inii furayeen hatta beenta kaaga daran waxa la soo dhigay shargal baa liiri kursigu furay war maxaa kursi ku furnaa Soomaaliya ina aqal la adii ina aqliga inaga dusan yahay kursi waa furan yahay liiri ergaan naag xariisata ayada maxaa la shaqaalaheeda guriyaha u joogay iyo dadkii dhashay ayada walaalaheeda hooyada aabeelkeeda si loogu tatabi kara kursiga hoolka markaa galnay aan aragnayna in qodbooyinka ay jiidsada kali ah kala soo baxaan nala jujuumaya nala dilay awoodna loo sheeganayo maxaa Cabdullaahi farmaajo markuu Cabdiraxmaan Shukur qeylinayo ma taal qeylinayo xasan cali khayro oo dalkii dadka dhalinyarada garabna siiyay noo kacay wax walba noo sameeyay la saaray 7 midid la saaray waan yaabanay dadkan maxay la qeylinayaan banaanka u taagay madaxweyne shoore qof walba wuu yaabana laakiin waxaan ogaanay qofka markuu noqonayo mucaarad banaanka loo saarayo in asaga la kasbanayo qofkaas in la dilo la tuubo wuxuu yahay loo diido xilkiisa loo diido wuu soo jeesanaya xor bay ahaanaya maanta maxaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo Mahad Salaad iyo Xasan Cali Khayr waxay ku banaan baxayeen oo wadooyinka u taagnaayeen maanta anu qora anigoo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Galgaduudna saacadan xilka gudoomiyaha dhalinyarada gobolka waa iska casilay anoo jooga caasimadda waa iska casilay waa iga banaaya waa iga madaxa qof kasta oo dhalinyaro oo ku nool Galmudug waxaan u sheegayaa intii uu joogto gabadh uu kansaday Raysala intii uu joogo farmaajo wax hormar ah iyo wax hami ah iyo wax higsi maanta u soo doonan aniga Galmudug maanta iga dhamaatay
markii arkay gabdhihii yararka ah qurbaha ka yimid oo hamiga lahaa oo hiigsiga lahaa sida loo bahdilaayo oo u bahdilay gabadha walaashiisa oo jeebkiisa ah gabdhaha kale uga eexanayo maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo gabadha maanta la doortay galmudug hiigsi ayaan ka lahaa boqorad ayaan ka ahaa maanta waxaan sugaayay 2 sano socota inaan isu sharaxo xilmaanka galmudug laakiin inta Farmaajo ku soo noqonayo ama ra'iisul meesha toogto uma baahni aniga saacadana gudoomiyaha gobolka galgudug ra'iisul qofkii soo qaranaysa joogtada u soo qorto aniga reer dalal baa raal magan dalal baa ra'iisi ala magan baa almagan chief alana anaga markaan nahay bihina guulad chief noo sooca agtuna saara Cabdillah ala magan busiya gudoomiyaha degmada caabada qaba Cabdillah ala magan maxaa dhahay maxkamadda caabud waa ninka joog Burhaan Dalmay Cabdillah ala magan taliyahana soo dacada Cabdillah ala magan maanta ra'iisul Cabdillah ala magan xilmaanka galmudug Cabdillah ala magan ayaan xilkeenii iyo dhalinyaradeennii iyo hamigeenu uga baxnay iyo faanay maanta waan ku xirayaana wali waan qaylinaya jirka u dugushay iyo barbaraha u sameysayna waan qaawinaya waan soo dhigayaa inta aan ka baqay maayo saacada hadii wax la ii dhimo ilaa dilo ciidanka galmudug joogay ciidanka Farmaajo qoqor baa idilay waxaan u dirayaa baaq gabdhaha Soomaaliyeed soo yaacay ku haya xil baan raadinaynaa eelkeenana aadaynaa waxaan leeyahay lacagtina haysta intuu ninkan meesha fadhiyo qabyaalaystaha oo anaga maanta la dhalanay naga oohinayo oo naga eexanayo qofkii Soomaalina waxa la qofkii cadaalad ka sugaayo anaga la dhalanay ayaa kursigeeni ayu cadaalad ka siman waay wax cadaalad sugunina waxaan kala baaq u dirayaa dadka magaalada dhooban ergada oo muuska ku jira miiska ku jira naftu maray go'daa mar Allah ayaa ku abuurtay ha ka baqin runtaadana ha ka baqin banaanka soo istaag qofkii idii laha mucaarad bata maxaafid ay taayna saak go'ayga garabku isaaraya taabta noo dhaqanta Farmaajo ku dhaqmayna meesha aad nageysana baan ku geynaynaa kuma baahni